nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innama alacmaalu bianniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa. camalladu waxay ku ansaxayaan oo ku hagaagayaan niyooyinka. qof walibana wuxuu niyeeye ayuu yeelanayaa khayr iyo sharba. marka khayrkii haddii la niyeeyo khayr buu qofku ku helaya. qisa ayaa dhacday, waxaa la soo naqliyey oo la soo raray. sheikh cilmi dhigi jiray ayaa inan baa u yimi, cilmiga ku cusub, wuxuu doonay cilmiga inuu barto. maalmo yar oo kooban ayuu markaa sheikhii la fadhiistay oo wax ka dhiganayey. in yar markuu wax ka dhiganayey baa geeri degdegi u timi, inankii baa dhintay. waxaa ku riyooday nin ardaydii ka mid ah. wuxuu ku riyooday inankii iska cusbaa ee cilmiga bilowga ku ahaa oo culammada lala soo saaray, isagoo jamca culammada ku jira. sheikhii buu u sheegay, wuxuu idhi inankii caynkaas ahaa ee maalmaha yar inala joogay ee dhintay isagoo jamca culammada ku jira in la soo saaray baan ku riyooday. sheikhii baa ka jawaabo wuxuu yidhi, waxaa laga yaabaa niyo dhab ah oo ilaahay dartii ah inuu inankani la yimi inuu caalim noqdo oo liajli illaah cilmiga uu barto, oo niyad markaa ikhlaas ah oo ilaahay dartii ay ka ahayd. dabeedna markaa niyadiisii baa loo qaaday, waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waa kaa yidhi, wa innamaa likulli imri'in maa nawaa. shakhsi kastaba waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyey. mar hadduu niyeeyey inuu caalim noqdo liajli illaah cilmiga u barto, yacni niyadiisii baa loo qaadayaa, siday niyadiisu tahay baana lagu abaalmarinayaa. taana waxaa laga qaadanaya in niyada la wanaajisto, oo niyo wanaagsan oo ikhlaas ah oo ilaahay dartiya lala yimaado, khayrka lagula yimaado, cilmiga lagula yimaado, cilmiga lagu barto. yacni saas iyadaabaa markaa loo baahan yahay si waxa weeye abaalmarin wanaagsan oo weyn loo helo.